بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد الأمان مرت شرفت قيبها كل الدول كسوق قيب شيء كلن كلابات قبصنا يان قولها نبضون هذا الصوماليات كون أهانتي وكلن آد قيرت أقول عن دونه ومدى الصوماليات قيبها هذا كل الدول كلن كان وحا افتتاح وحول بولا بالله waxaa ugu qeyr badan aayadaha quraanka kariimka in lagu furto qolka eebe waxaan halkan ugu yeerayaa nabadoon sheekh maxamed maxamuud saalax falyatafadal wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sadaqallahu al azim aayadaas quraanka ee suuradaas كريمك إلهي سبحانه وتعالى وحي شيغيسا ددكا inay khasaare galayaan dhamaantood inta yaro ilaahay ka soo reebay mooyaane oo ah inta ilaahay rumaysay amal wanaagsan sameysay muxuu ahaayay isu dardaarmay sabir xaq isu dardaarmay kadibna sabir isu dardaarmay marka waxa macnaheedu yahay hadii qofku xaq ka shaqeeyo in dhibaato soo gaarayso sidaa darteed waxa weeye sabir inuu qofku ku sabro runtii arrimaha hadda ka shaqeynayno oo halkan aynu isugu nimi oo bilownay waxay noqonayaan in xaq laga shaqeeyo nabadgelyadu waa xaq ay ka mid tahay dadka isliin la islaaxiyo oo wanaagooda laga shaqeeyo oo dhibta la dhex galo meesha dhibtu ka socoto la dhex galo waxay noqon sabir bay u baahan tahay in la isku tiirsanaaday u baahan tahay arrintaas waxay doonaysaa muxuu ahaayay arrin khayr weeye khayrkuna hawshiisu leeyahay sabir baa layna ka rabaa iyo dulqaad waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan ku sabirro ilaa aan ka gaarayno guusha wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين آيات القرآن الكريم وإنه أقريه نبضون شيخ محمد محمود صالح الله نجو أنفعه كوي كوكر فلا وكعمل فلا الله نجوا ذا ديجو سيدا كله برامج كيني أيها كسي يقول جرنا أو كلن كلابات أو قبصة مايو قالها نبضونا ذا صوماليات حرم تود وين أكو تالو عاصمة مجال ذا مقدشو هاتن وحاء يريدونا سك كلمة كجا آدن كلن كلابات قبصنا يان قالها نبضونا ذا صوماليات أو رنتي بولشة الله فنبر waxaan u yeeriyaa nabadoon cali diiriye afrax ku soo dhawow nabadoon bismillahir rahmaanir rahiim wala aqibatu lil muttaqiin wala udwan illa ala zalimin ama ba'du golaha nabadoonada Soomaaliyeed ee meeshan ku kulansan iyo TV-ga waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaan maanta meeshan sugu nimid anagoo ka kooban golaha nabadoonada Soomaaliyeed oo kulankiisii labaad waxaa meeshan sugu nimid in shaqal soo socotay muddo dhowr sano ah oo si gooniya markii hore la isku soo arkay kulankii labaadna uu ku dhacay hotel Garsoor maanta waxaa sugu nimid xafiiskii golaha nabadoonada Soomaaliyeed oo ku yaala halka kana maanta taaganahay waxaan rabnaa inaan si guud iyo si gaar ahaaneedba bulshada ay ka soo jeedaan golahanu ay maanta si cad ay u booqdaan ay u ogaadaan golahan ka kooban maamul goboleedyada Soomaaliyeed oo dhan ay ka wada kooban yihiin taas ay ku midoobeen in ay sidii goonida ahayd ay ugu shaqeeyayeen dadka ay ka soo jeedaan inay ka fiican tahay sida midnimada oo si guud inay wada shaqeeyaan maadaama dalkan burbur badan maray burburkaas badanna ay ku lafdhabar u ahaayeen inay u shaqeeyaan dadka ay u shaqeeyaan marxaladii farabadnaay ee dalkan soo qabsadana ay ka soo badbaadiyeen waxa marka maanta ka bacdi maadaama dalka dawlad laga agleelay shaqeynayso in ayaguna ay midoobaan kuna midoobaan midnimada Soomaaliyeed lana shaqeeyaan dawladaha dadka sidii markii horeba markii dawlad la'aanta ay ahayd ay uga shaqeeyayeen dadka maaragtay bulshada dhexdeeda si guud inay wada shaqeeyaan taasna magacay waxay kula baxeen boorkaas halkaas ku yaala oo ah
golaha nabadoonnada Soomaaliyeed meeshan waxaan ii sheegayaa maanta odayaal ama nabadoonno meel kuma soo dhammaadaan laakiin waxay ka kooban yihiin sida guud 75 ayay ka kooban yihiin nabadoonnadaanu waxaa fulina u ah 25 waxayna ka kooban yihiin kasoo bilow Soomaaliya maamul goboleed ama Somaliland ama gobolka Banaadir 75taas way ka kooban yihiin waxayna isku diyaariyeen inay u shaqeeyaan shacabka Soomaaliyeed kunana shaqeeyaan horumar iyo maaragtay wixii hore in laga soo tago in mid localka laga soo tago in laga soo tago waa soo aragnay awal markasta nimankan waa nimankii laf dhabarka u lahayd burburkeena soo shaqeynayay maantana gobolka Banaadir xafiiska ugu weyn ay ka furteen waxayna ku shaqeyn doonaan ugaas kuma jiro suldaan kuma jiro waa nabadoonno qoysimadu waa gooni nimankan waa nimankii dhig joojinta ah nabadoonnadu shaqadooda waa dhig joojin salaadiinta ugaasyada kuma jiraan shaqadoodu waa u gooni shaqada maanta meeshan ka taala waa nabadoon hadda ka hor nabadoon midaysan ee Soomaaliya ka turjumaya hadda ka hor annagu maana oo si guud u midaysan maanta ka hor maana arag annagu waan rabnaa inaan hawshaas u taagno hawshaas annaga isku xilqaanay waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inay nala shaqeeyaan nagalana shaqeeyaan danta guud wax siyaasada iyo wax kale oo nala xiriira iyo cid kale oo annagu hoos tagno iyo cid siyaasada gadaal aan ku wadano intana waxa uu sheegaynaa mujtamaca Soomaaliyeed inaysan jirin nabadoon cali diiriye afrax aad iyo aad ayuu u maasan yahay waxaa ku sii xigo nabadoon cabdiraxmaan jimcaale cali بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه ضمان قلها نبضيات الصوماليات وهل كان فرديا والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام warku waa sida ragga iga horeeyay u sheegeen halkan maanta waxa fadhiya nabadoonyada golaha Soomaaliyeed nabadoonyada golaha Soomaaliyeed waxay ku tilaabsadeen oo xariga ka jareen Soomaaliya waxa haystay arki waayeen waa fiirsa waayeen inay dib u heshiisiin Soomaaliya u sameeyaan Soomaaliya idil waa Soomaaliya waa hal Soomaaliya waa hal diin waa hal dal waxay ku nooshahay nabadoonku waa fiirsa waayay waxaan go'aansanaa aanu ka nabadoonyihii Soomaaliyeed oo Soomaali cid ka maqan aysan jirin inaan Soomaali dib u heshiisiin gelino dalkeera iyo dadkeera aan isbarno isma yaqaaniine qofku waxay tahay hadayna aqoonin qof wax waxna ma taqaano qofay wax ka hadlaysana ma taqaano waxaan go'aansanay haddaan nabadoonyaha nahay wixii halaabay inaan ka samafalno wixii dhimanna aan dadka la qurxino saahawshaasi walaan u taagnaynay oo dhibka Soomaaliya dhexdeeda ka dhacay la arkaba meel oo ku heestay ina wada jir ka dhigno ee Soomaaliya oo dhan wada jir aan ugu shaqeyno Soomaaliya inay wada jir naqato warkuna Soomaali oo yahay arintu sidaas waaye wabillahi tawfiiq assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aad ayuu u maasan yahay sida kooban qudbadiisa kaga aadan kulanka labaad ee u qabsoomaya golaha nabadoonnada Soomaaliyeed xaruntooda dhexe ee caasimadda Muqdisho haatan waxa u sii yeeri doona nabadoon xasan qaasum qayli kusoo dhaw بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وأنا هلكان كسلامة نبضونا الصوماليات قار أهان كوا قولها حنفيس كان كم مدول طلبات إيشان سيدا هذا متقانا يوانا كبدن كران سببتو وحالو فوري حنفيس كان نبضون صوماليات أو قيمين هوتن أو ليقان أنا سو قيم قال قفك حر المجرم واسو دوينينا عد الدولان نقولها أنا مجرم هذا ما ملتهي هذا يتقن تهيبه وحن قرينا أنا نبضونا دي هل فرعنا هل كاس فرمجان هينن صوماليا إلهي هكذا جه أنا هل فرق لنا أنجعلنا دي بواسيسين تهاي هدي أنا جماش أنجو قف أي واحد الله ورا أنا نبضون كأه سيدا كلا مش شيء كوان كلا حال نبضون هذا نبضون كهذا أنت أنكم مدوني أنا جا من الصوماليات وحنا ومصعنا دانا كلام مليهن وحالنا هاي عد كاستا ودنين نسودو وبالله التوفيق نبضون حسن قاسم قيلي آدي يؤما سنيهاي
barnaamijkeenii kulankeenii labaad ee golaha nabadoonnada Soomaaliyeed ayaa weli ku dhex jirnaa haddana waxaa u sii yeeri doonaa intaanan u yeerin dadaala dad yahow dadaala dunida waa duufaane nabadda ku dadaala waxaan u yeeri doonaa nabadoon Maxamuud Axmed Gaafow ku soo dhawow الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نبضونا صوماليات يا حفيظك الجوجا وعنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا شرفه شالي هدي كلا فرارتي ما أنت أنا يسوت همات صومالي جفاء يكبحضه لاب يكبحضه ما أنت فائدة واي وحافظ الحماة من صوماليا أو كجدينا أو ولا الكائه أو كجديجا أنا وجفك حاجة مغنى هذا عادي يحنت هرت مدة سلاح نجكوري نبضوية الصومالية دوحة لقرها شغو ضاعت أنت نجا مغنى وحاربنا إني نقصوا بيران نمكن نبتك شغيناي أنا كل شركات مئهن هيئة مئهن سياسة مئهن waxaana nahay nabadoonyo tabliiq ah ninkii geedka jooga iyo ninkii oo sarta kor saaran iyo gabadha eriga la jirta iyo ninka luuqa ku jiro dad inay hor istaagaan rabnaana oy daacad tahay yacni cidna lagu qoqobi maayo cidna lagu xumayn maayo annagaa curinay odayaasha is arkay waxay ogaadeen inaan danu ku jirin Soomaali inaysan kala maarmin Soomaali inay wada walaal tahay inay eysin tahay inay eedo tahay inay habaryar tahay waxaan ku soo dhaweynaa Soomaaliya oo gacmo Soomaali waay Soomaali isla qaadanay Soomaali waay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفو آدي آدا يوما سنيا سيدا كوان أو قيرد له أو جوهر لي مناسبة كلن كلامات أو قبصو ما يقولها نمضونا ذا الصوماليات حرون توضح مع عاصمة مقالة مقدشو هذا نوع أسيري دونا نمضون عبد الله موسى أبيان كسودو. بسم الله الرحمن الرحيم. هلكم وحكي السلام يا دمان نمضونا ذا السوي من قابتن وأكلن كودي لبعض iyadoo halkan ay tahay maanta xafiiskii guud ee nabadoonnada Soomaaliya oo dhan inta ka bacdi halkan waxa fadhiya hawshan waxay socotay muddo 2 sano ay baray socotay inta gaar baa loo wada fadhiyay waxa laga hadlayay oo lagu naqadeynayay raggan waa rag la soo xulay ariga hadii la dhoofinayo waa la baaraa neefka burasaylaan lagu arko markabku shaashaynaya waa laga soo reebaa ورق حلا وحلا تجابي قفك وحقبت كيسة إيمان كيسة داعد مديسة إسلام مديسة كرتديسة أنت عمرك الله إسلا قرتي أنت إنك شرودا إنه عاسب وحي أي الله صوغبتي ما هم يلا سوق على صبر الله سوري ونما الله سوق فريستي معها أنت عمرك الله إسلا علي وحلا دقاقي إن وحلا قبطه أمد الصوماليين والله يوم مركا وحلا هاي عدي كستا مطلوبة دندر باغات إلى أخذ البي وحنود لنا عدي عد كمطلوبة هذا قبل تهي هذا دقمت تهي هذا عاصمة تهي عدي عد كمطلوبة ومحكمة يقول سريسي جورجان بوفرن جورجان يوفرن ستان وحقق بنا وأرك دونتان سيدا ونولش غيسان وأرك دونا أنت وحكو درنا نبضونك ونبضونك وياي تذكر برجع ورد لكلا بقيتشري إن هذا أمن وأي نلاش غيان وعدي أنا فرطة في قنو إن نبدأ السوالي ميلك استاذ شو حيلسه أنا فرطة في قنو هدانا نلاش غيان أو نلاش قبن أو نلاش السن وهم قبن كارينو أنا وقولي مسجد إنه قاري مو تيجي كم وضلوا عماد أساس إنه إلهي بانو ثلاث سهر إلهي مركان ثلاث سهرنا وحنو تعال هاي ومدة الصوماليين شيخ شريف هوين
wixii islaam inay islaamnimada nagula shaqeeyaan. nabadoon cabdulaahi muuse abyan aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. haddana waxaa u yeeri doonaa malaaq aadan cabdi ibraahim ahna gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee golaha nabadoonnada Soomaaliyeed. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin walxamdulilaahi rabbil caalamiin. wali aan eran lahay odayaal iga horeeyan eran warwiin mugad dalkaan burbursan marna daawo mahal ilaahay daawo ku sheen dadka awoodismadeen dalkun burburiyaan madaxa johbaha odayaalkan dalka le waa joogeen laakiin waa absadeen sama ka feeri lahay adduunku maan sheegane inay Soomaaliya siyaasadda dumiyo hayta Soomaaliya madax ku deernay odayaalka qabiil kasta odaya hukumaay seelagnoolay gobollada Soomaaliya degan kullisho way hukumaay malaaga hukumaay way hukumaay islaam hukumaay may hukumaay odayaal oo magala waa hukuma jiraan talyaani marka imaadeen yoo la hariiri maysiin lahaa dalkun odayaalkun maag mahankan ha ka hen waana ka guulaysadayaan laakiin hata dawla-ana daryeeloy kii kale ku dambeeyana daryeeloy waddanka odayaala hukumaay wabilaahi towfiiq. nabadoonnada Soomaaliyeed aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. haatan waxaa u yeeri doonaa inuuna soo gaaro caaqil nabadoon cabdilmalik xirsi cumar. الحمد لله وبه نستعين أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. waxaan salaamayaa nabadoonnada Soomaaliyeed marka ugu horeysa waxaan idin sheegayaa horta halka waxaynu iskugu nimid tasliix Soomaaliyeed inaynu ka shaqeyno inaynu Soomaali wixii ka xun wanaajino inaynu dhaqan celis noqono maanta waxa la doonayaa maskaxda haday ka dulowdayna inaanu wax ka wanaajino haday adimada ka balowdayna inaanu wax ka qabano aanu ka hagaajino. nabadoon caaqil cabdilmalik xirsi cumar aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. haddana waxaa u yeeri doonaa nabadoon xasan cismaan maxamuud. akhyaarta nabadoonnada Soomaaliyeed ee ilaahay halkaan isugu keenay ee midnimo Soomaaliyeed u taagan mid jooga iyo mid maqanba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan rabaa inaan walaalowno waxaan rabaa dhegta waxna lagu kala sheegay waa isjecelnahay walaal baan nahay 40 fac ma dhamin war ab tirsada war 40 ma dhamin culimadu waxay leedahay ilaa 40 waa riixin dad soo ka waay waa family healthy bill culum saasay waxaan beeshaan baan leeyahay halkaasaan leeyahay halkaas baan ka ahay maaha mid baan nahay far baan nahay walaal baan nahay ehel baan nahay waxaanu leenahay Soomaali ka soko intaynadan meesha fadhida waa ka xaraan inay wax qorsheeyaan waxaan uga dan leeyahay in dhalinyarada iyo dadka aan u dhahno oo goobta u tagno inay nagu qancaan baa la rabaa haddaan wax qoondayno qoondadii bay la taagnaanayaan intaas haddaan taas uga gudbo waxaan leeyahay waxa aan ku midownay waa ka run sheegaynaa waxa aan ku midownay waxaa diidi doona nin kala qaybsiga wax ku raba oo shakhsiya oon ahaynin nin danguu doonaya waxaa jiri doona ninna duraya oo wax naga sheegaya oo dhahayo war dangaara mali wallaahan ku dhaartay arrintan markii la asaasay hadda gadcalle war hadda guddiga waak war toonshino baa u raac maan qaybsan waa maya wallaahan qaybsan sida ilaahay og yaan ku shaqaynaynaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nabadoon xasan cismaan maxamuud aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. haddana waxaa ku xijin doonaa aan u yeerayaa nabadoon cabdi cumar axmed. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
dee ragga waxa iga wada horreeyay jawhartii dhaqanka golaha dhaqanka Soomaaliyeed hadalkana ma badinayo muhiimaddu baan doonaya inaan anigu ku tiraabo Soomaaliya 18 gobol bay horta ka mid yihiin odayaasha dhaqanka ee halkan daladan ku midoobay waa odayaal dhaqan qabiil ma aha shiraya Soomaali baa maanta halkan ku dhan oo ku dhameystiran hadday gobolis tahay hadday maamul goboleed tahay iyo hadday guddida xubnaha ka koobantayba taasi waa taa Soomaaliya isku dan baynu nahay isku diin baynu nahay isku midab baynu nahay wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatu Soomaaliya ha guuraysato aad iyo aad ayuu u maasan yahay haatan waxaan u yeeri doonaa nabadoon Axmed Cali Xasan Axmed Gaari ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha nabadoonnada Soomaaliyeed Somali Peace Council walaalayaal kan jooga iyo kan maqanba golaha nabadoonnada Soomaaliyeed dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatu salaan kadib aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in nabadoonnadii Soomaaliyeed midoobeen in hal meel laga maamulo in xafiiskaanu xaruntoodii guud yahay in gobol ilaa degmo in la gaarsiiyo aan ku ballanay in gobolada qaarkood xafiis nooga furan yahay inaan kuwa kale ka furi doono saasaan ku ballanay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay intii ka soo shaqaysay iyo intii kala shaqaysana waa mahadsan yihiin war la qabo xiisa male akhyaar badan oo hadalkeeda aan aad ugu faraxsanahay ka hadasha meesha nin hadal ka xumaadayna ma jiro isku meelan u wadnaa magacaasaan mideeyo meesha ku qoran golaha nabadoonnada Soomaaliyeed magacaasaan ku midowna golaha nabadoonnada Soomaaliyeed nin gaaruhu male beel gaaruhu male nin kastoo nabadoon Soomaaliyeed xafiiskan waa u furan yahay waana ku soo dhaweynaynaa waana ku aruuri doonaa isku siyaan isula howlgeli doonaa isku siyaan isula howlgeli doonaa annagoon kala ra'yi yahayn annagoon kala aragti yahayn annagoon isfiidayn annagoon isficlayn saasaan ku shaqaynaynaa golahaanu waa golo nabadeed waa golo nabadoonno waa golo Soomaali dib u heshiisiin door ka shaqaynaya waa golo nin kastoo ka mid uu yahay nin muslim waxaan ku midownay diinta islaamka waxaan ku midownay Soomaalinimada Soomaali waa hal dal waa hal af nabadoon awalba waa shaqeeyay nabadoonnadu weligoodba waa shaqay jireen wax hadda nagu cusub ma waxa isbedelay waxa la gaaray horumar waad aragteen wax walba la horumariyay nabadoonnadina waa la hormariyo waa midoobeen oo Soomaalinimo ku midoobeen Soomaalinimana ku shaqaynayaan waxa alla wixii dhib lena waa isu kaashanaynaa waana wadaynaa shaqada Ilaahay idankiis tan kale Soomaali waxay taqaanaa haddii qolo jirto in la yiraahdo muraad ay leeyihiin annaga nin siyaasi oo arrintan ka dambeeya ma jiro qof walba ha ogaato nin siyaasi ee arrintan garab nagu siiyay in nala abaabulay in nala ugu jiro qof walba ha ogaato cid kasta ha ogaato siyaasiyan unaan duulan ku ahayn duubabkanaan duulan ku ahayn culumadanaan duulan ku ahayn ruux kasta oo Soomaaliya shaqadiisa la faragelimeyn waa ku kaabaynaa Allah meeshaan wax ku aragno laakiin inaan farta ku fiiqno odayaalaan u nahay meesha bulshadu wax ku aragto inaan farta ku fiiqno odayaalaan u nahay waxaan ugu soo kordhay in nabadoonnadii midoobeen dhaqanku waa kii hore oon xumayn inaan wax wanaajino maahan inaan xumayno kuma midoobin waxaan ku midowno wanaag iyo rayn iyo inaan Soomaalinimo raadino wax badanaan fiirsaynay wax badanaan aragnay artol beelay yaa rebel isku duulay waxba waa ka soo bixi waayay waxaan garanay haddaan odayaasha Soomaaliyeed nahay inaan hal meel isugu nimaad hal ra'yina ku odayayno wixii dhib lana isugu tagno arrintu saasay ku jahaysan tahay aad iyo aadna u mahadsantihiin haddana waxaan rabaa inaan gudoomiyahayga ku soo dhaweeyo gudoomiyihii golahan dhaqanka golahan nabadoonnada Soomaaliyeed Cabdulqaadir Axmed Ismaan gudoomiye ku soo dhawaaw waa mahadsantahay sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in dhammaan nabadoonnada Soomaaliyeed meel kasto ay joogan iyo ummadda Soomaaliyeed dhammaan halkan saaka waxaanu isugu nimi
shirkayagii labaad ee xafiiskii ugu weynaa ama xafiiskii ee ugu awleysnaa Soomaaliya oo aan halkaan maanta ku shaqaynaynay annagoo qorshayaashayadii iyo sidii aanu mustaqbalka u howlgeli lahayn iyo sidii aanu mustaqbalka midnimada iyo wadajirka iyo isa saamaxa iyo ilaahay idankiis Soomaaliya oo dhan ilaahay idankiis sidii aanu u tawjiihin lahayn ayaanu maanta halkaan isugu nimi shirkiina si fiican buu noogu dhacay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay hawl galaan nabadoonnada Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa geeska gees meeshay joogaanba inay u diyaar garoobaan inay shaqadooda ay iyagu leeyihiin inay qabsadaan taas marka taas ayaanu u midownay taasaana lagu shaqaynayay waxaana rajaynaynaa insha Allah mustaqbalka shaqadayada oo ilaahay idinkii midaysan oo aanu dhammaantay gacmaha qabsanno annagoo ku kalsoon dadkayaga meel kastoo ay joogaan dadka Soomaaliyeed waa dad walaalo ah waa dad ehela waa dad qaraabo ah waa dad wax kasta ay ka dhaxayaan saa darteed marka haddii ay dhaliila jireen iyo haddii ay dhibaato jidhay waxaan rabnaa inaanu xalay dhalay ka dhigno insha Allah tacaala mustaqbalka socdaal nabadeed iyo sidii aanu mustaqbalka u kicin lahayn ilaahay idankii shucuubta ama dadkeena wanaaga ugu sheegi lahayn sida hadda culimadu ay uga qayb qaataan sida ay magaranaysaa dawladuhu ugu shaqaynayaan ilaahay idankii sida ay dhammaanba qaybaha kala duwani ee insha Allah shaqadooda u qabsadaan si ka duwan ma aha arrintan waa arrin tasliixa waa arrin midnimo waa arrin wadajir waa arrin magaranaysaa isa saamax waa arrin aanu runtii dhammaantay ka midaysannahay waxaana rajaynayaa insha Allah xafiiskanu inuu shaqeeyo oo uu noqdo mid ilaahay idankii ummadda waxtara inuu noqdo Allah ka dhigo subxaanahu wa ta'ala xafiiskii ilaahay idankii ummadda waxtara Allah ka dhigo mideen u midowna Allah ka dhigo mid magaranaysa ummadda wax kasto ay ku jiraan iyo dib kasto ay ku jiraan Allah ka saaro ilaahay ka saaro ummadda waxaan rabnaa ilaahay idankii ummadda midowna inaan noqono dal iyo dibadna waxaan ugu baaqaynaa in Soomaaliya gacmaha isqabsadaan Soomaaliya inay gacmaha isqabsadaan in danaha gaarka ah laga daayo in danta guud laga shaqeeyo danta guud baa wax u taraysa danta guud baa wax u noqonaysa danta guud baa ilaahayna wax ka dheefaynaa danta guud bayna ummaddu mid ku noqonaysa maxaa yeelay rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam nabiga ku salliya nabigeena alayhi salaatu wasalaam markuu ilaahay inoo soo saaray ummad jirta baynu noqonnay umma ayaynu noqonnay ummad hal keliya baynu noqonnay ummad khasaa'inka ilaahay ka faa'iidaysta baynu noqonnay ummada baynu noqonnay maantana tii insha Allahu tacaala annagoo ka duulayna inaynu ummad noqonno way hal ummad inaynu noqonno waxaan ugu baaqayaa ummadda inay caqliga mideeyaan inay fikriga mideeyaan inay ilaahaydinka caqligu ku noqdo sababtoo ah ummadnimada ayaa wax lagu noqdaa koox koox iyo maamul iyo wax meelo farfadhiyaah wax buuran keeni maayaan waliba dadka waxaan ugu baaqayaa dadka hogaamada u ah yani koox kasta ahaadeen waxaan ugu baaqayaa inay maskaxdooda ay mideeyaan inay ku fekeraan wax weyn ha ku fekereen wax yar ha ku fekerin inaan leenahay insha Allahu tacaala waxaan leenahay Soomaali ha midowdo ha israacdo odayaashii baanu nahay ilaahay idankii waan u ducaynaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan ilaahay waxaan leenahay makhraj khayr la qaba ilaahay hayni furo shirkuna waa xiran yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh